بارتي 3 ان قصده حسين LG iyo xaaskiisa oo dhibaataysay baartigan waa baarti 3 insha Allah baarti 4 oo ku soo xiri doona hadda gacanteeda ku jira sawiradeeda waxa waaye magaceeda qabiilkeeda hadda idin sheega sida barnaamijku faanta maxay meeshan TikTok waaye waxa waaye wax badan lama hadli karo ogtiin daqiiqada waa yihiin marka sida sheekada sida u faantaan baarti 4 waxa waaye 7 daqiiqan ku soo kooba weelkii sawirkiisa iyo ayda sawirkeeda tan laakiin magaceeda qabiilkeeda iyo waqtiga isku guursadeen iyo sida isku guursadeen macnaha dhibaatada meesha ka imaada maxna Xuseen qalad weyn uu sameeyay gabadhan ehelkiisa dhan digniin Xuseen waa la sii iyo dad badan Xuseen yaqaan waxay dhahan gabadhan hadhow iyo dhibaato ku keen ciidan waa la yaqaan Drogba la naagtan ciidan waa la yaqaan Drogba waa dad halis waaye hadda ku dhibaataysan adduunyada wax kasta wadaad kasta hadii quraan kasta waxa waaye oo cilaad kasta uu geeyo dhakhtar kasta uu geeyo waxa waaye waxay isticmaalaha taa lama ogaal waa ciidan banaadir dhan waa yaqaanaan aad halis u yihiin warka joog gabadhan hadda iska fur gabadhan macnaha bahdilin ku jira Xuseen loo sheegay arabaad inay faayo baarti ana ku faafayna waxa waa baarti 4 kan sawirkeeda iyo walaalkii sawirkiisa waa ku soo qatay sida u faantaan Xuseen waa tan ka soo ogtina hadda gabadhan ka hadlayna gabadha walaalayaal magaceeda waxa la Qadiijo taqaana waxa way Soomaali waxay ka tahay banaadir waxay ka tahay taqaana Drogba waxa way labadooda waalidsi oo jecel isku guursanin asaga aabihiis waa nin waa arag saddex baho guursaday baada Xuseen bahda yar waaye taqaana iyo ayda aabeed gabadha aabeed saaxiib lillah oo aad isku jecel soo koray marka habeenay wada fadhiyeen dagaalada kadib Xuseen oo 5 jir odaygu wuxuu dhahay xaaskii ay dhal rabto hadii gabadh dhalato wiilkaaga waxa waaye aan siisana aabiis wuxuu ka ballan qaaday inuu Xuseen siinayo odayga Xuseen aabiis bah badan u lahaa sheekadaas u faantaan rabaa mugtahay boqolkiiba boqol arintan waa confirm way ninkan waxa saad dhibaatay oo ninkan dhibka u geystay waa xaaskiisa Khadiijo way taas waa looba marka qof walba oo ninka la dhashay ama eel la ama saaxiib la iyo gabadhaas waa la yaqaana hada inta been aan ka sheego muuqaalkan banaadir badan waa isku dirayaan marka dadka si u fahmaan marka wax oo kale ma jiro ninkan gabadha dhibaataysay sababtaasna waa baartigan aan ku sharaxa baarti 4 kale sawirkeedii waxna waa ku soo qatima insha Allah waxa waaye labada aaba gabadh la si Xuseen markuu soo weynaado asaa holan imaaday aabiis reerkiisa holan imaaday aabiis holan ku noqday Allah naxariisto marka Xuseen markuu soo weynaaday waa nin wuxuu karti loo kala argo ma sha Allah Xuseen marka asaga ma rabin gabadh tol iyo waxaas asaga ma rabin dooqiisu asaga rabin aabiis wuxuu dhahay aabbo aniga saaxiibkii ka ballan qaaday gabadhiisa gabadha waa soo weynaanaysa marka naag kale kugu ma ogi gabadhaas aan kugu waay Xuseen holan laga waday waxa la geeyay Soomaaliya gabadhu soo guursaday Qadiijo soo waday holan oo keenay 5 gabdhood iyo wiil oo haysa hal habeen waxa lagu leeyahay dadka taa u sheegi jiray inuu gabadhan jeclaan marka ma furi karo oo aabiisa waxa waaye oo dardaaran ka qaatay ehelkiisi marka gabadha waa bahdilay marka waxa waaye naagu waa aragtay Xuseen waa telefoon kamaradu daaraa qolka dhaxdiisa markaas eheladiisa dadka dhan digniin galisi ayadana waa ka dacwootay waxay dhaaday ninkan waxa waaye suxnu igaloya anoo qolka fadhiyo oo qolka taa waxay jiifka furan oo intuu galo oo naaga shaqo waa qurxan tahay wallahi bilaa tala markaas gabdha ayadoo maqlayso yaa la joogtaa ilmiya naagta maqlay naagta shukaansanay markaas wuxuu leeyahay ilmaha walaashii la joogaa walaashii waay siduu gabadha u bahdilay siduu gabadha uu dhulka ugu jiiday waa loo sheegay waxa la dadkan Drogba la dhahaa Xuseen oo ka joog naagaha Drogba naagaha halis waaye qofkay qabtaan waa u dhamaad god ku ridaan Xuseen oo ka joog waa loo sheegay boqol mar loo sheegay Xuseen ma furay wuxuu yahay ma furay taqaan aabiya balan ka qaaday marka waxa waaye hadii rabto ayda u taala shaqo ka soo baxa guriga cuntada askarsanay guriga iska nadiifinayo waxaan ku dhahay war labada saddex sano ugu horeysmaan wixii ka dambeeyo dhan nolol oo aad iyo aad cariir oo labada kooda noolay waana dhibaatada keentay walaalayaal arrinta waa jirtaa dadka la sii dhibkaan ay leedahay waxa way labada qof hata inay sheekaystaan oo hata xogaayar ay sheekaystaan la rabaa marka gabadh la siinayo labada qof horta inay isku imaadaan la rabaa horta raali iska yihiin qasab oo isku sii waxa tan oo kala kamid ah waa kaasa ninka saas loo dhibaatay gabadh la siyaasad u dhibaataysan ninkan au jeedin gabadha magaceedu waa Khadiija Allah hadda waxay degan tahay dood qamay degan tahay dood qam waxa waaye xuduudka Jarmalka waaye waxa waaye Amsterdam waxay u jirtaa adiga hal saac bar ee train u jirtaa baawurka asaana soo dajiyay asaana holan keenay gabadha marka hore dan xaqay deganaayeen laba cunug ugu dhashay kadib magaaladan soo guureen dood qam 60,000 population degan in Soomaaliya yarna waa degan tahay naagtan aad loo yaqaanaa waxa waaye gabadha gabar aad u qurux badan waa waa haya bariyaan soo dhigaa insha Allah aan baridam insha Allah taala markii barnaamijka qastoriga dhan aan isku dabarido hadii la yiraahdo
waxa waaye gabar dhuuban aad u qurxan waaye maasha allah khadiijo waxa waaye horta waa qurxan tahay laakiin waxa waaye shaydaana ka tambadiyey qabiilka waxa waaye durban waa ka dhalato oo naagooda halis ah horta ninka ayadaa saas u gashay ayadaa dhibaataysay inaha markuu waxaas ku sameynayay ayadana waa adkayso weyse waxay u haysaa 5 gabdhood iyo wiil u haysaa 6 caruur u haysaa waxayna hadda degan tahay dood ka mid degan tahay waana meesha ay ku waashay waa ninkan ay dhibaatada u geysato waay maanta xuseen ehladiisa maanta waa jooga waa nool yihiin iyo asxaab iyo wax kastaba xaaskiisana waa la yaqaanaa muuqaalkaana banaadir badan waa isku diraa haddii magaceeda khadiijo la dhihi waayo darqba haweyso oo doodqam ay deganaa weyso gabadhaas oo xuduudka jarmalka haddii deganaa weyso agtiisa haddii deganaa weyso aniga waxaa idin sheegaya sheekadan dhan been waay sawirkeedana waa kusoo xijinaa si dadka u fahmaan marka waxa waaye qisadan waa qiso aad iyo aad u xasaasi waay taas marka waxay keentay inaan kusoo koobi karin hal qayb inaan kusoo koobi karin taasaa keenaysa macnaha nagasta barnaamij khadiijo sawirkeeda iyo walaalkii sawirkeeda iyo sida ay dhibaatada ugu geysteen waa nagasta barnaamij waay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu